dadkaygo cunta dhabada laga diro anka cagarane bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idil ahaantiin baddaawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka beeraha ee telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan barnaamijka toddobaadkan ayaa waxaanu ka eegi doonaa mashaariic ay wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ee ka hirgelisay gobolka Gabiley kaas oo ku saabsanaa beeraha casriga ah iyo u adkaysashada isbeddelka cimilada barnaamijkan ayaa daawadayaal waxa inoo soo diyaariyay wariye ayaa la xaaji oo ka howlgalaha gobolka Gabiley isla markaasina uu soo warama telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka beeraha amahan dadkaygo cunta dhabada laga diro anka cagarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Gabiley Cabdishakuur Rashiid Macalin dardargelin iyo siyaasadda wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa maanta kormeer ku tagay soo xidhay mashruuc ka socday afar deegaan oo ka tirsan degmada Arabsiyo mashruucaasi oo ahaa mashruuca nidaamka beeraha iyo beerashada casriga ah ee la jaanqaadka habka isbeddelka cimilada mashruucaas oo ay ka faa'iideysanayeen boqol beeraley ah oo ka tirsan afar tuulo oo hoostaga degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley oo ay ka mid ahaayeen deegaanka Agamsaha Huluuq Arabsiyo iyo sidoo kale deegaanka Biyamacaan kana tirsan degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley waxaana kormeerkaasi ku helinayay sujuwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabiley maamulaha degmada Arabsiyo ee wasaaradda beeraha iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxaana ururka maxalliga ah iskan oo kaashanaya hay'adda WFP oo iyadu maalgelinaysa mashruucani isla markaasina ay furnaysay ururka iskan ay boqolkan beeraleyda ah siiyeen tababaro saydhad iyo sidoo kale agabka beeraha ee kala duwan haburaabka casriga ah diyaarinta dhulka nafaqaynta carrada iyo sidoo kale isticmaalka sumaha waxaana mashruucan uu noqday mashruuc guuleystay isla markaasina ay ka faa'iideysteen boqol beeraley oo ka tirsan afar tuulo oo hoostaga degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley mashruucani ayaa beeraleyda kala duwan ay ka faa'iideystay ku tilmaameen inuu ahaa mashruuc guule isla markaasina ay ka faa'iideen waxaana beeraleydu ay carabka ku adkeeyeen noocan oo kale ay hormood ka noqon karaan in dalku gaadho isku filnaansho cunto si loo fuliyo siyaasadda xukuumadda Somaliland ee wasaaradda horumarinta beeruhu hormoodka ka tahay waxaana isugu kormeerkiisaas ku soo arkay dalagyada ay beereen beeraleydu oo ay goosanayaan isla markaasina ay iibgeynayaan iyagoo sheegay in ay iibgeeyaan magaalooyinka Burco Hargeysa iyo Gabiley isla markaasina weeygi ay ka raraan konton saxaradood oo xabuuba balse markii hore sanadka oo dhan ayna intaas heli jirin mashruucan uu noqday mid beeraleydu ay ku badhaadheen kuna faa'iideen waxaana ay si gaar ah ugu mahad celiyeen wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland sidoo kale hay'adda iskan iyo WFP maanta waxaanu kormeerkayagaas u daaran yahay in mashruucaasi la yiraahdo Climate Smart Project inaan wax weeyaan aanu soo kormeerno oo ah mashruuca waxbarashada casriga iyo la qabsiga isbeddelka cimilada oo runtii ay wax weeyaan afar deegaan ka socda marka waxaanu nahay suduuhi gobolka wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Gabiley iyo maamulihii xafiiska degmada Arabsiyo ayay nala socda iyo wasaaraddeeni marka guud ahaan mashruucaasi oo loo sameeyay boqol beeraley ah oo laga taageerayay qayb ka mid ah mashruuca casriga drip irrigation ka 40 beerood 60 kalena laga taageeray seedka run ahaantii waxaan ku soo marnay mashruucaasi soo guuleystay oo maanta dadkii ay ku jiraan waxa weeyaan in marketingkii ama suuqeyntii ay galaan waanu hambalyeynaa iskaan loo kala injiyo waxaan leenahay waxaad fahmsan dadaal fiican ayaad muujiseen run ahaantii annaguna markhaati ayaan ka nahay barnaamijkaasi aad fuliseen runtii meel fiican ayay kaga suntan tahay beeraleyda mashruucan la qabanayo drip irrigation kii iskugu jira ee boqolka beerooda wasaaradda horumarinta beeraha uu madaxa ka yahay iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guudba halkan waxa ah degmada Arabsiyo wax qabad la taaban karo beeraleydu aad u mahadiyeen beeraleyda oo loo sheegay sidii biyaha loo tashiili lahaa sunta sidii loo isticmaal lahaa tiyoona ka marnayn in qalabkii iyo siirkiiba la siiyay halkan boqol qof baa degmada ay wax la qabteen waxaan rajaynaynaa intaay in ka badan inay la qaban doonaan mashruucan in la sii balaariyo waayo dad badan baa aad uga faa'iiday dadka ka faa'iiday iyo midhaha ka soo baxay intaba waxa lagu ogaan karaa yacni dadku siday ugu faraxsan yihiin sidii biyihii loogu qaliilay sida imika wax badan oo ka lumi lahaa shaqaalihii inay hawl yaraatay beerihii qaabkii dhulka lagu daadinayay siirko iyagana caagagiyo
aad arkaysaan in si fiican loo farsameeyey. ilaahay baa mahad iskale. maanta halkay 100 qof ka tahay dee koley kowna ma taagna Arabsiyo marka degmo ahaan laga hadlayay 4 tuulo loo kala qaybiyey. mashruucan WFP iyo iskaan waxaan baaq ugu diraynaa in ay dib loogu kordhiyaan oo beeralayda wada gaadhaan oo maxay hayday ka faa'iideysiga dadkani ay heleen 100 beerood loo faa'iideeyo mashruucan dib extension loogu sameeyo oo la balaadhiyo. waxaan maanta u soo baxnay inaan ugu hawlgalo barnaamij ay NGO-ga iskaan ay ka wado 4 tuulo oo kamid ah degmada Arabsiyo. mashruucaas oo ah la qabsiga cimilada iyo badqabka. waxaan maanta soo kormeernay markaasi 4 tuulo ee mashruuca ka wadeen. mashruucan oo bilowgiisii aanu ku furnay isla degmadan Arabsiyo. isla furitaankii maantana aanu la joogno xidhitaankii isagoo 6 bilood ka soo wareegeen. October baan furnay. maantana waxa weeyaan April March-na soo dhamaaday. maantana kormeerka noo suurtoobay insha Allah tacaala waxa weeyaan 4 tuulo waxa kamid ah Holuuq, Agamsaha, Arabsiyo iyo Biyo Macaani. waxa ka faa'iideystay mashruucaasi 100 beeraley ah. 40 kamid ah drip irrigation bay siiyeen. 60 kamidna waxa weeyaan seed iyo qalabkii kale ee beeraha ay kala duwanaa bay siiyeen. dhammaan 100ka beeraleyda waxay ka sameeyeen tababarkaas oo ah isticmaalka biyaha dripka, yareynta biyaha, nafaqeynta, maamulida carrada, land preparation ko diyaarinta dhulka, sumaha iyo sida loo isticmaalo, traininada faraha badan leh ay soo siiyeen. xidho iyadana tuumbooyinkaasi dripka ay ku tababareen markii dambe iyaga laftooda si balaarsan ay ka faa'iideen tababarkii ay xidheen. waxaana ay ka faa'iideystay 100 beeraley ah. barnaamij guuleystay buu noqday. NGO-ga iskaan aad baan ugu mahadnaqnaa iyo WFP iyo maalgelisay. beeraleyda aanu soo marnay ee aanu soo wareysanay runtii waxaan soo marnay beeraley ka faa'iideystay oo midhihii ay soo saareen qaarkood raraya, iib geynaya, suuq geynaya. waxa weeyaan anaguna ka mas'uul ahaan waxaan u xisaaranahay oo ugu idmanahay wasaaradda inaanu hadba mashruucii ama hawlihii laga wado gobolkan ku soo kormeerno, inaanu ku maamulno hay'addu halka ay ka shaqeynayso iyo degmada ay ka shaqeynayso ay nagu soo marto xafiiska oo anaguna ku maamulno oo noqon dhaana degmo Hiblaayo u baahan geeya oo baahiyo la socono inaanu ku kormeerno bal waxay siinayaan siirka waxay siinayaan ku kormeerno sida wax u wadaan beeraleyda iyo waxaan u dhaxaynaa hay'adaha inta badan ka caawiya dhinaca wax soo saarka beeraha. runtii waxaan u tafaxaydinahay oo inagu hogaaminayaan siyaasaddaasi madaxweynaha qaranka in la soo saaro cunto ku filan dalka. wasiirkayaguna taas inagu hogaaminaya madaxdeedu annaguna gobolada waxaan ugu idmanahay inaanu u shaqeyno beeraleyda gobolka iyo wasaaradda inaanu isku xidhno. shaqadeedana waxa weeyaan waanu sii wadanaa. beerta waxay iga caawisay hay'adda iskaan WFP kaashanaysa tamaandhada seedkan iyada loo keentay wixii kii hore beeran jirnay noogu bedeshay kan waxay noo keentay oo aan tusaale noo noqday dhibicdan oo aan isticmaali jirin taasoo dhibicdu ay tahay biyo yareyn, biyo tashiil, faa'iido kale oo ka badan oo noo yeelatay. waa taa 20ka ta ugu fiican. maanta halka waxaan ugu soo booqday isku duwihii beeraha wasaaradda beeraha. waxaan dhex joognaa waa beertaydii. waxaan u baahanahay in mashruuc sidan oo kale dadka loo gaarsiiyo loona baro inay sidani ka tayo fiican tahay sidii hore nuu beeri jiray. waayo aniga beertaydu wataa waan iska daayay markii hore biyihii dhulka lagu shubayay way ka kharash badnaayeen. imika hal nin oo shaqaale ay la joogaan mar waxay dhacaysay 5 shaqaale ay nagu haysta intan gebigayga aanan beeri karin haddana. waayo kii majarfada haystay kii waraabinayay kii kale wixii odan intii odalba waan magaranaysaa waan ka raystay. hal nin oo shaqaale ay la joogaan halka nina shaqaalihii sidii aan u shaqeyn jirnay uma shaqeynaba. xagga waqtiga tan imika waxay ku bislaatay waa 2 bilood iyo badh. tii horena waxay ku bislaanaysay 4 bilood. maanta waxaan joogaa beertaydii waxaan joogaa midhihii waxaan guranayaa midhihii ii soo baxay. waxaan u bixid celinayaa hay'adda iskaan iyo WFP. halkan waxaan ugu soo booqday maanta wasaaradda beeraha iyo hay'adda iskaan oo bixisay mashaariic ay ku caawinayeen beeraleyda kuwaas oo ahaa tamaandhadan, kaabash iyo agab kale oo sida sumaha iyo qalabkii sunta tababaro ay wadeen. aad ayaan uga mahadnaqnaa tababarada ay bixiyeen. waxyaabo badan oo waxa jiray ay naga caawiyeen. ruuxana waxaan uga faa'iideystay horta qaabkii
loo isticmaaliyay sumaha aad ayaan uga faa'iidnay qalabkii loo xidhanayay suntoonaan marka hore xidhan jirna daymi waanu ka xidhanaa suntoo waanu ku shaqaynaa sarciidii horta aanu beerinay dee horta waxyaabo badan oo ka maqnaana waanu ka faa'iidnay sida sumaha iyo xanuunada ku dhaca tabaandhada aan ku helnay hay'adda iskaan iyo WFP beeralayda Arabsan kamid ahaa maanta wax qabadka loo qabtay anoo uga mahadnaqaya ururka Sky iyo WFP mashruucan waa naloo keenay anuu markii hore darbis kuma jirin qaybta saaqeedaan ahaa kadib xanuun bay la soo darso iga reebay ururkii aan isku jirnayna caawimiga siiyay Skyna wax qabad weyn bay muujisay waxa la igu bedelay darbiskii anna ma khasaarin waan ka faa'iiday ceelkaygii oo bilabiya maanta wax saarku soo saaray way aragtaan way muuqata midda kale maanta ceelkaygu intan ma waraabiyeen haddaan darbiska la siin aad u biyo yar yahay haddana maanta maasha Allah ka soo saaray waxaas oo dhan marka waxaan caddeynaya horta inuu darbisku aad uga faa'iido badan yahay wax walba waana ugu mahadnaqaynaa hay'adda WFP-da ururka Sky aad baan ugu mahadnaqaynaa Sky oo wax qabad weyn noo muujiyay waxaan maanta soo booqday wasaaradii beeraha ee degmada Arabsiyo iyo gobolka Gabiley isku mashruucan aad iyo aad baan uga faa'iidnay sida ay wasaaraddu u daba taagan tahay qolada NGO-ga iyo kuna mashruucan loo gartay waxaan nahay shakhsiyaadkii aad iyo aad uga faa'iiday marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda iyo qolada iskaan waxaan leenahay mashruuciini aad iyo aad baan uga faa'iidnay mashaariicda iyo mashaariic kale oo fara badan ba insha Allah hadda deegaanku idin ka baahan yahay hadda noo keentaan waxaan nahay anagu dadkii ka faa'iideysan lahaa imka tusaale tabaandhadan macalaayimka la beeray waxay aad wax uga qayb qaadatay xaqii wax soo saarka aniga kaliya ma ahay macalaa wadankii wax soo saarkiisa aad uga qayb qaadanaysa tabaandhadan imka aan guro waxaan u iibgeeyaa Burco Gabiley Hargeysa Arabsiyo marka wiigi waxaan aan guraa qiyaastii ilaa 50 saxaradood wiigi marka muddo waxaan gurayaa imka ilaa 30 cisha qiyaastii waan gurayaa muddo bil ku dhow waan gurayay marka hadda tabaandhada way yaabayaan markay dadku yiraahdaan buqcad yar baan ka guraa 25ka qolashay tolay timid baa deendahoogi ku aragtay anoo bartaa gurayo kortoomadii ku raseeyay oo diraya maanta siirkan la noo keenin kastuu siir qaali yahay waxa weeyaan oo arkaysaan isagoo imka abaqaala iyo isagoo murihii ka soo gurayba oo ay kamaradu kulay way qaban doontaa waxa weeyaan tamaandho runtii aad iyo aad aan ugu bognay muraha ay dhalayso iyo inta ay ku baxaysaba waxaan markaa aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda nacaawsay wasaaradana waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad xaalad kasta oo aan beerihii ay marayso inaad nala socotaan iyo waxqabadkii hay'adda inaad ku daba gashaan oo nala ogaataan waxaan idinka warbixinayaa oo idin sheegayaa in maanta waxa aad arkaysaan ee aad indhihiinu ay arkayaan ay tahay horumar iyo tallaabo aan abaqaalka berigii hore god baan ku ridi jirnay halka ama gun madoobeeyay iyo waxba naga helay maanta abaqaalkii waxa la nagu tababaray inaan soo iibsano keesaska yaryar oo halka ku baqlisano in abaqaalka qajigii iyo tabaandhadiiba way diyaar kiilaysi iyo kiyaan soo iibsaday baa waxaan ku ritay halkan maanta waxaan doonayaa inaan turtabaan ku abaqaalo ramxadina oo ka ilaahay noo shubay waxaan rajaynaynaa waxa weeye horumar iyo barwaaqo barnaamijka la sameeyna waa barnaamij aad u wanaagsan waa barnaamijka triibku biyo markii roobka ka hor imkaan haysan biyo badan oo igu filan 15 mir bay buqcada dhami ay ku cabaysay markan tumbooyinka waxaan tugan ka soo aan waraabaan ahaa qaybta triibkaasi waa number 1 waana waxyaabaha maanta biyuhu inoogu tashiilay way biyeeraan markay dhacday in la sameeyo triib oo nidaamka dadka beeraleyda la tuso aad bay muhiim u tahay guud ahaan badawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii beeraha oo toddobaadkan inoo soo diyaariyay wariye ayaa la xaaj dhanka kamaradu Wacawl Cabdikaahin anigoo Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuura ayaa idila socodsiinay intaynu barnaamijka lamid ah ku kulmi doono waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh beeraha ma saracna amahan dadkaygo cuntada